إنا لله وعن محمد الله ونحرسته إلهي وأرحى وكان سيغا مقام الذي سنة إلهي موجين دونه إياغانا إنه سامر سيو تذكر ريتشو بلانا وحربانا نغتع سيئيو وقيرين تيرانيالي وريتشو بلان كل عضي وحوها آساسياشي وحوها نبضونكي وحوها دوقي الناقي ريتشو بلان ملكي ليلة waxaan u malaynayaa da ahaan iyo garasho ahaan iyo mas-uuliyad ahaan intaba duq buu noogu ahaa xakan buu noo ahaa oo labadii wax isku qabato qofka kala bixiyuu ahaa allaha u naxariisto waxaynala gudboon inaanu duqayno agoontuu ka tegay inaan madaxa u salaaxno wixii iyo shaqadii u waday oo fiicnaydna inaan isku dayno inaan halkeedii ka sii wadno ama dib u heshiisiin ha noqoto ama isku wadista bulshada ha noqoto macallinku wuxuu aada ugu lahaa wax badan oo firfircooni ah marka laga soo tago la dagaalanka shabaab oo xilligii dagaalkan aan bilownay isagoo ah ninka noogu da-da weyn haddana diiday inuu xataa magaalooyinka tago oo yidhaahdo war maya manhaj baa lagu ciyaarayaa dagaal diineed baan anu gelayaa dagaal qabiilla weligay ma gelin ku kalena ma gelin kaa diintaan gelayaayo nimankaanan diin ahaan ula dagaalamayo waa la garan karaa markaa sida uu ahaa iyo kayfiyadiisii reer jubbaland taasi waa noo taalla waxaan rajaynayaa inaan saddexda maalmood ee soo socota arrintaa tacsida aan ku jirayno wuxuu ku dhintay macallinku xaydarabaad oo xanuun loogu qaaday waxa ku dhacay wuxuu ahaa cudurka kansarka oo madaxa kaga dhacay mayna qadartu dhicin in la daweeyo oo ajasha qofna nus saacna kuma dari karo nus saacna kama dhimi karo taa markaa ajashiisiibuu macallinku ay ahayd inuu maanta meeshaa fog ee masaafadaa dheera oo ku geeriyooday waxay ciladu tahay adduunka oo dhan oo kala xidhan oo cudurkan dhibka badan ee masiibada ah ee adduunka oo dhan saameeyey oo meel walba kala xayiray haddana waxaan isku dayaynaa dariiq kasta oo meydka aan ku keeni karayno inaanu ka shaqayno dariiqii aan soo marin lahaynba haddii ilaaha yidhaahdo oan isku dayno inaan ku aasno xaruntiisa haddii ilaaha yidhaahdo dowlad goboleedka jubbaland magaalo madaxdeeda kumeelgaarhka kismaayo waana rajaynayaa insha allahu buugga tacsidiisuna wasaaradda waxbarashada ayuu ooli doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waan u tegi doonaa caruurta iyo reerka meydkaas sida loo keeni lahaa waan ka shaqaynaynaa ma iloobi doonaan taariikhda macallin maxamed iyo dhismaha cusub ee jubbaland wuxuu ka ahaa waxaana rajaynaynaa inaan meel fiican oo munaasaba ugu magacdari doono oo maxamed ibraahim aan laga iloobi doono oo qof kastoo jubbalanta la dhisay iyo sababtii loo dhisay iyo halgankii lasoo maray iyo shabaabkii laga xoreeyey iyo dadkii la isu keenay garanayaaba oo ku xusuusan doono waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay baa lahaa isagaana qaatay intaasaan rabaa inaan hadalkeyga kusoo uruuriyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu